gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiidhe ayaa shirjirayd uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ka warbixiyay shir ay maanta gudida nabadgelyada ee gobolka Sool ku yeesheen xarunta dawladda hoose degmada Laascaanood. gudoomiyaha ayaa ka hadlay waxyaalaha ay ka wada hadleen. ugu horreynna waxa uu gudoomiyuhu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha dhulka ee degmada Laascaanood. waxaan shir saaka ku yeelanay dawladda hoose ee degmada Laascaanood aniga iyo gudiga nabadgelyada ee aan hogaaminayay runtii arrimaha isla qaadanay حكمي أرمها dhulku runtii saynu wada ognahay haddeer afakale oo dhibaato oo deegaanadeenan ama wadanka ka jirta ma jirto waxaan isla garanay dhulka in sharciyo loo eego cidii dhulka aan sharci u haysan inaanay dhulku habsan karin cidii sharci u haysataana in ay sharciga la timaado oo sharciyan loo eego waxay meelaha la iska habsado iyo dhulka sarayaasha dhibaato fara badan bay ku hayaan deegaanada iyo bulshada waxaan uga deganaa ama aan kula talanaa ama aan ka codsanaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan daafaheeda kala duwan inay runtii ka waantoogaan dhulka ay xirmaysanayaan iyo deegaanada ay deegaameynayaan ee cusub inta midnaba siyaasadda dawladdu ma ogola deegaamo cusub oo la deegaameeyo. gudoomiyaha waxa uu sheegay in arrimaha qashinka ee degmada Laascaanood maalmihii dambe muran ka taagnaa halka la geeyo ay wax weyn ka qaban doonaan. waxaa dhibaato badan ku haya qashinka oo runtii in badan laga hadlay odaal badan ay cabsho nooga soo gudbiyeen waxaan ballan qaadnay inaanu arrinta qashinka wax weyn ka qaban doono insha Allah dawladda hoosena wada tashi iyo isxog waran baan ula tagnay hawsheedina waa ku jirnaa waxaan ku talagelaynaa in sidii horeba loogu ballamay gudweyn oo magaaladu ay qashinka iskaga qubto loo qodo maamul gobol iyo mid degmaba anagoo isku raacsan. dhanka kale gudoomiyaha ayaa ka hadlay arrimaha nabadgelyada gobolka Sool iyo dil dhawaan ka dhacay degmada Adhacadii ee gobolka Sool. haddii guud ahaan gobolka Sool waa nabadgelyo amni baa ka jira waxaan doonayaa amniga sii xoojino habeen saddexaad dhacdo Adhacadii ka dhacday ciidamada amniga waxaan uga mahadcelinayaa militariga iyo biliiska iskaashanaya inay gacan ku dhiglihii gacanta ku soo dhigeen aan imika xabsiga Laascaanood ku xiran yahay taasna waa horumar xagga amniga laga gaaray. sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu shacabka degmada Laascaanood ka codsaday in meel looga soo wada jeesto maandooriyaha khamriga oo dhibaato weyn ku haya deegaanka. waxaan kaloo amniga waxyaabo xumeeya kamid ah khamriga oo imika runtii dhowr jeer aan ka hadalnay habeen walbana magaalada dhibaato badan u geysta khamriga waxaan uga digaynaa dadka keena shaygaas waa shay xaaraana ilaahay baa xaaraantimo aad quraan ku soo degtay wanka weyn iska daayaan culimada gobolka Sool waxaan ka codsanaa inay masaajidada wacyigelin badan ka sameeyaan iskuulada in wacyigelin laga sameeyo meelaha bulshada isku duwan in wacyigelin la sameeyo oo halkaas in ula wada dagaalami lahayn waa afaqarane khamriga in ula wada dagaalano. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiidhe ayaa baaqyo kala duwan u diray booyadaha biyaha u dhaamiya deegaanada ay abaaruhu ka jiraan iyo sidoo kale kuwa u dhaamiya gudaha magaalada Laascaanood. biyuhu yar yihiin biyo dhaam soo bilowday meelaha runtii ceelasha biyo dhaam iska jiro waxaa ka jira jam fara badan runtii mashquul fara badan baa ka jira in meelaha runtii mashquulku ka jiro booyaduhu ay si asluub leh oo habdhaqan leh oo sida loo soo kala horreeyay in ay ku sugaan inay ceelka halkaa ku yaalla magaalada koonaheeda laga soo galo wasaaradda maxaa la yidhahdaa biyuhu ay isduuhan aan ka wada hadalnay ceelka waxaa la sheegay in biyihiisu ay aad u soconayaan. gudoomiyuhu wuxuu amir ka soo saaray shacabka inta badan hubka la taga goobaha ceelasha biyaha ay ka cabaan reer miyigu in cid walbaaba ay si nabadgelyo uga dhaansato ciddii nabadgelyo xumo wato mid kale hub lama iman karo ceelasha magaalada ka baxsan ee biyo dhaamis ka jiro xilliga jiilaalka ay booyaduhu ka dhaaminayaan hub lama iman karo haddii noqoto qabiil hub la iman kara ma jiro haddii noqoto shakhsiyaad iyo qof hub la iman kara ma jiro haddii noqoto cid manaaficad gaar ka dayaysana looma ogola. maxamuud aadan askar maxamuud gurey saab TV magaalada Laascaanood.